Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada Kabara Media. Waxaan halkan kaga hadlaynaa magaalada sida casriga ah loo dhisayo ee Neom. Neom waxaa la dhahaa waa magaalada mustaqbalka. Waxaa laga hawlgeliyay magaaladan jiilka teknoolojiyadda ugu dambeeyay ee robootiyada, tagaasida dadku raacaan oo iyagna duulaya. Xataa waxay leedahay dayax gacmeed macmal ah. Meel walbana waxaa laga hirgeliyay teknoolojiyadda casriga ah, taas oo aan wax wasakh ah ku sii deynin hawada sare. Haddaba magaaladani xagee bay ku taallaa? Waxaan filayaa daawada inaad isweydiinayso. Magaaladani waxay ku taallaa Sacuudiga, gaar ahaan waqooyi galbeed gobolka ku teedsan xeebta ee lagu magacaabo Tabuuk. Waxay ku fadhidaa dhul dhan 26,000 oo kiiloomitir oo isku weer. Dowladda Sacuudigu waxay mar horeba u qorshaysay lacag dhan 500 oo bilyan oo dollar si loo dhammaystiro mustaqbalka magaaladan. Waxay soo jiidatay maalgashadayaasha ugu horeeya caalamka. Haddaba waa maxay magaca Neom? Muxuuse u taagan yahay? Ereygan wuxuu ka yimid laba erey oo la isku daray oo kala ah Neo iyo M. Neo waa erey Greek ah oo macnihiisuna yahay cusayb, halka M ay ka soo qaateen ereyga mustaqbal oo Carabi ah, kaas oo ka dhigan marka la isku daro mustaqbalka cusub. Tanina waa qayb ka mid ah hiigsiga dhaxal sugaha Sacuudiga ee MBA sanadka 2030. Hindisahan wuxuu yimid kadib shirkii maalgashiga Sacuudiga ee uu hogaaminayay MBA sanadkii 2017, kaas oo uu rabay Sacuudigu in la sameeyo ilo dhaqaale oo aan ahayn kan saliidda oo la yareeyo ku tiirsanaanta shidaalka. Sida la qorsheeyayna waxaa la rabaa magaaladan inay soo gabagabowdo sanadka 2025. Waxyaabaha cajiibka ay magaaladani wadato waxaa ka mid ah inaysan lahayn wax wado ah ama gawaadhiba. Waxay ka dhigan tahay adeeg walba oo aad u baahan tahay waxaad ku helaysaa 5 daqiiqo oo socdaal ah, halka magaaladan gebigeedaba cidhif ilaa cidhif aad ku soo wada gaadhi karto 20 daqiiqo oo keliya. Waxaana keliya ka adeegaya mashiinno aqoonsanaya wejigaaga. Waxay leedahay hal wado oo keliya, lana dhaho wadada suunka, taas oo dhererkeedu dhan yahay 170 kiiloomitir. Sidoo kale magaaladani waxay isku xidhaysaa isku socodka caalamka, gaar ahaan Egypt iyo Jordan. Waxaa la qorsheynayaa in buundo la saaro xeebta badda cas ee magaaladani ku taalo si boqolkiiba in ka badan 40 caalamku ku soo gaadhi karo in ka yar 4 saacadood, taas oo istaraatiiji ahaan ku taala meel u dhaxaysa Afrika, Yurub iyo Aasiya. Waxaa laga furay oo waqti xaadirkan shaqeynaya airport-ka Neom oo ah mid si casri ah loo dhisay. Waxyaabaha kale ee cajiibka ay magaaladani wadata waxaa ka mid ah dayax gacmeed macmal ah oo habeen walba dul heehaabaya magaaladan. Waxaa kale oo ka mid ah cajaa'ibta ay magaaladani wadato roob macmal ah si loo helo roob ku filan. Waa goob loogu talagalay inay soo jiidato dalxiisayaal aad u badan, sidoo kalena lagu qabto tartamada kala duwan ee sportiska sida Formula 1 iyo geemamka artificialka ah si loogu ciyaaro magaaladan. Gebi ahaan mashruuca Neom wuxuu abuurayaa fursado shaqo oo gaadhaya 380,000. Waxaa laga heli doonaa cusbitaallo bixinaya adeegga ugu sarreeya ee caafimaad, sidoo kale waxbarasho tayo leh oo ay bixinayaan dad gaar ah. Neom waxay 1,000 kiiloomitir u jirtaa dhulka barakaysan ee Maka iyo Madiina. Mashruucani wuxuu barabixiyay dad gaadhaya 20,000 oo qof oo dadkii deegaanka ahaa, inkastoo ay diidmo adag kala hor yimaadeen boqortooyada Sacuudiga, kuwaas oo u badan qabiilka Huwaytaad. Sanadkii 2020, ciidamada ammaanka Sacuudiga ayaa dilay Cabdiraxmaan al-Huwaytaati, isagoo hormuud u ahaa olole dhanka internetka oo lagaga soo horjeeday qorshahan. Sanadkii u dambeeyay mashruucan waxaa soo wajahday hubaan